بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalaha inagala socda halka kan CF bulsho kusoo dhawaada muuqaalka kan iyo fariin cusub insha Allah waxaan rabaa inaan idiin sheego geed ka mid ah geedaha geedkaas isticmaalkiisu waa caafimaad ma sha Allah wuxuu caafimaad ka yahay isha gaar ahaan sixirka xanuunada ruuxiga adduunyada tan waxaa ku batay xaaqidiinta xaasidiinta kuwa uurka ka xun kuwa horumarka ka xun kuwa farxadda ka xun kuwaas adduunkii maanta ku batay kuwaas ma isku dhiibaysaa marka fikradooda qaloocan dulmigooda ma isku dhiibaysaa xumaantooda miyaa isku dhiibaysaa waa maya maxaa samaynaysaa dantaadaad aqoonsanaysaa naftaadana ilaahay aayaadkiisa ku xirsixiraysaa waxaan halkaan u joogno waaye CF bulsho CF bulsho dadka qaar waxa laga yaabaa Soomaaliga inaysan eriga fahmin CF bulsho horta bulsho way garanayaan sida u qorantay waxa la midka laakiin CF ina la yaama CF Soomaali markii loo bedelo waa maxay waa ca iyo fa ca iyo fa waaye CF na marka Laatiiniga kale Ingiriisiga ku timaado waaye channel ka asaasaan waa asaasnay yani la talinta arrimaha ruuxiga inaynu walaalaha ka caawino ayagoo meesha ay jooga say naftooda u badbaadin lahaayeen boqolkiiba 90 xanuunada dadka hayana waa xanuuna halkaas caafimaadkooda ku jiro waxa la wadaago marka geedkan ka waramayno waa geedka gogobta loo yaqaan ama sidriga loo yaqaan ilaahayna quraanka ku sheegay waxay u fiican tahay arrimo badan oo aanu halkan ku wada wadaagi doono geedkan qaabka la iskugu cilaajiyo oo jirkaada xanuunada ku jira ee ruuxiga ay isha xasad kale sixir kale balaayada jirkaada ee hadhow xanuuno kale inay dhalay karaan laga yaabo ayaad ku baabi'inaysaa uga saaraysaa dhowr xabbaad soo qaadaysaa qaabkaan aad samaynaysaa aayaadkaan aad ku akhrinaysaa wabilaahi tawfiiq xalay dhayabaad ka noqonaysaa cuduradii hore oo dhan intaad aamintaa insha Allah nabigaana noo sheegay sallallahu alayhi wasallam marka muuqaalkan like tasii باذن الله inuu ku anfacayo ana og ama walaalka anfacayo ama walaasha anfacayo ama hooyada anfacayo ama waa anfacayo aabaha ama walaalaha kale oo muslimiin anfacayo una sii shargare subscribe nida hadaadan wali dhahin CF bulsho sirtaada ku jirta insha Allah taala geedkan ka warabayno waa geed meel kasta yaala hada soo dhadhaweyno yani helitaankiisa ayaa fudud Soomaaliduna waxay u taqaanaa gogobta qofku markuu dhintay caleemihiisa waa lagu dhaqaa وانا سنة رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم كتمد marka waxa raadisaa 7 xabo caleenta gogobta ama sidriga loo yaqaano sidaana samee ogow geedkan fadligiisa waxa kamid ah intaan yani qaabka ay 7dan ku galin saa fadligiisa ogaatid oo marka aad u xiisaysid geedkani waa geedaha jannada ku yaala mid kamid ah ma sha Allah geedkani nabi Muhammad baa dalbaday sallallahu alayhi wasallam markay gabadhiisii dhimatay meedkeedii maana lagu dhaqay aayado kala duwan baa lagu sheegay geedka kan Allahu akbar ilaahay wuxuu yiri quraankiisa kariimka wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud fi sidrin geedka gogobta waa ilaahay quraanku ku sheegay suurada la yiraahdo al-waqi'ah suurada kalena waa ku sheegay sida wadnajmi oo kale geedkan fadligiisa waxa kamid ah shayaadiintu ma muqaawameyn karaan awood kale ma horteegi karaan shayaadiintu way ka cabsadaan ma awoodi karaan ma u dul qaadan karaan jinniguna sidoo kale geedka kan caloosha iyo jirka caafimaad iyo tabar ayuu siinaya waa geedkan gogobta aanu ka waramayna ma sha Allah hadaba maxaa samaynaysaa marka caleemihiisa 7 xabo soo qaado sixir baa isku tuumaysaa xasad baa isku tuumaysaa cudurka ku hay dhaqaatiirtu waa ka qoosteen waxa aad ku qanacday laguma sii Soomaa halkan tijaabi 7 xabo caleentiisa raadso waa fududahay meel kasta adduunka inta badan waa laga helayaa marka 7daasi ee caleentiisa heshid oo qacanta ku dhigtid cid kalena bahasho wakiilkaaga ma adaa samaysanay qaabkan ku sheegay wayna weesa qabtaa marka saas samaynaysa tabcan yani xaqiiqatan marka sida laga waramayo 7da caleen waa shiidaysaa markaad shiidid biyaad ku darsanaysaa
fiican way fahanti soma biyaad ku darsanaysa waana weesa qabta kadib aayaadkan ku akhri yara codkaada xooga adoo kor u qaaday yani zaa'idna ma ahan laakiin xooga adoo kor u qaaday ayaa aayaadka kan ku akhrinaysa insha Allah aayaadkani ama bihi asoo geed ku dhex jira biyaha suuratu faatixa kow shanta aayadood oo baqara ugu horeysa aayatul kursi 3 suuratul jinni 4 suuratul kaafiruun 5 suuratul ikhlaas 6 suuratul falaq wan naas 8 suuradood kutuf insha Allah biyahaanaad cabaysaa sida markaa ku samaysid kadibna waad ku qubaysanaysaa waad isku dhaqdhaqaysaa laakiin markaad suuliga la dhex gashid oo ku qubaysanaysid biyahan suuliga isan deegalin oo biyo quraan ku akhrisan waaye baaldi ama shay weyn ta dhex istaagtid kula qubayso hadhowna biyaha inta qaadid guriga geedaha agtiisa ku yaala ku waraabi ama meel kale oo markatay sharaf leh oo quraankaasi sharaftiisa uu san kala darbiga kala saa ugu qabooji laakiin suuliga ka ilaaliyo wax fiican ma ahan inta hadda sameeyay insha Allah ta'ala hordalaantii kugu dhacday way ka baxaysaa deganaansho la'aantii kugu dhacday way ka baxayaan waxaad helaysaa qalbi degan nolol degan waa istiraaxaysaa si sahlan oo fudud baad u seexanaysaa adoon wax kale isku kalifin dhibaato kale iyo stress kale iyo fakir kalena gelin halkan kan samee meelahan aad ku wareegaysaan iyo dadkan beenbeenta idin sheegay inta iska dhaaftaan daawadu qacmihiina ku jirtaa ilaahay intaad kaashataan oo talada saarataan ilaahayga subhanahu wa ta'ala ku kalsoonaada wuxuu idin qoro sida tan sameeyay sidaan ayaa ku fiican oo naftaada aad ku daaweynaysaa biidnillah geedaha kan iyo qaabkan waa dilaa weyn oo sixirka iyo shayaadiintooda dilaa shayaadiintana jirka ka cayri Allahu akbar cilad kala jirta ragga qaar sixir dartii lagu sameeyay ayuusan dareemo u qaaday raganimadii baa baabaaday xaaskiisii ma danaynayo intaasay wada nool yihiin wax dan uu ka leeyahay malahan rabitaankii raganimo iyo dareenkii baa la dilay sixir lagu dilay balaa lagu dilay waa nooleynaysa tan sidaan samee hay ninkaadu hadduu sidaa yahay waad uga shakisantahay inuu sidaa hadda tahay mid taqaan u sheer gale waa muhiim u soo qaabkan insha Allah ta'ala dadnimadiisii xoogiisii iyo raganimadiisii waa la soo noqonayaa faras ayuu noqonayaa insha Allah ta'ala waana sidaan sheegnayo 7 xabbo oo caleentaasi geedka gogobta ayaad shiidaysaa kadibna biyaha saad ku shubaysaa laakiin intaana markan ku akhrinaysa haday xaaladda goonida jirto aayatul kursi iyo suuradaha la yiraahdo qawaafil qul ka bilaabma suuradaha qawaafil ka bilaab yani lagu yaqaano qul ka bilaabmay waana suuradaha qul ku bilaabma suuratul jinni qul wahiya kow qul ya ayyuhal kaafiruun qul huwa Allahu ahad qul a'udhu birabbil falaq iyo qul a'udhu birabbin nas shanta suuradood ba qawaafil loo yaqaano qul bay ku bilaabmaan shantaas aad ku akhrinaysaa iyo aayatul kursi iyo suuratul faatiha inta marka akhrisid biyahan waad isku rushaynaysaa xubinkii taranka oo ninba ka waramaya hatta weynaad dareemadu ka dhacayaduna waa sidaas xubinkii tarankaana waa ku rushaynaysaa iyo logihii iyo wixii la midka insha Allah ta'ala saddex jeerna bisinka intuu qabto cabiya qofku bismillaah qoco alxamdulillaah bismillaah qoco alxamdulillaah bismillaah qoco alxamdulillaah kadib inta soo hartay uu ku qubaysanaya insha Allah ta'ala ninka ehelkiisa laga xabisay dareemihiisa baabay haweenida sidaas oo kale ku dhacay daawo uu tahay arintaas iyo qaabkaas waxa soo dhawaa furmayaan waana tagayaan karaaru qofku soo qaadanaya insha Allah ta'ala aroos cusub baad galeysaan intaasaan jeclaysanay walaalaha inaan ku caawino meel kasta aad ku sugan tihiin nolol quruxsan Allah idinsi kuna deganaada noloshina insha Allah muuqaalkan qodobka muhiimka baan inagu soo gudbinaynay intaas ayuu noo joogayaa muuqaalada kale iyo fariimo kale intaas kugu imaanayno kani halkaas aynu ugu baaqdo wabillahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh